ciyaalkoodii inaan ka ganacsado walaalahayga inaan soo bandhigo ma rabanayo ani waa dhalinyaro aad u da'yar haddana baraha ay ku leeyihiin YouTube-ka waxaa ku xiran bulsho badan waxay jiraan ruwaayado si ay u madadaaliyaan dadka ku xiran janaalkooda YouTube-ka Hanad Axmed Maxamed Hanad Yare waa wiilka ugu yar da ahaan ee leh bar YouTube ee wax soo dhigo waxa uu sheegay markii uu arkay inuu leeyahay hibada jiliinka inuu qaatay go'aanka ah inuu ka mid noqdo dad kale baraha YouTube habeen walba maalin walba studio riwaayadaas iga duwayna oo soo noqdo adhooniyo riwaayada goormeel soo saara aawe ina dhow marka waxay igu waa muddo aad markii uu yartay 8 bilood ka hor 8 bilood ku jira fanka alxamdulillah adi anigoo 4 bilood ku jiro amba 3 bilood ku jiro waxaan bilaabay inaan waxa fikrad igu dhalatay in waxa saaxiib la noqday wiil YouTuber ah oo YouTube leh in badan isla soo jirnay marka anina uu igu dhaadhacsi inaan YouTube farto والله وكل كلا كانوا يقول هاي أرت وحى مهمة قفك مركي أو يوتيوب بلاو ويا أصل وحى ضدك آدم وقرنا مقطع ساسنا ضدك موسو جديدنا يو لكن قفك قد يقف في المديس عم بدك هر أصول داودنا عم بتغير هر أصول يشتي أو هاي قفك هلا تغيره هلا قرب على سينا مركا يوتيوب كي والله وحى حسوس تهوينك وهري أفرنا كوني 700 سبسكرايب ذا كاني واسعود dhalinyaro badan ayaa soo dhigay YouTube-ka muuqaalo aan wanaagsaneyn kuwaas oo ku raadiya daawadayaal badan si janaalka YouTube-kooda u noqdo mid hela daawadayaal badan ayo dhowr sababood oo isbiirsada kalifay dadka wax soo gelinayo oo aan ahayn dad ehel u ah warbaahinta qof camera helay oo maxaa la yiraahdaa kadibna ciwaan samaystay oo YouTube samaystay waayay marka asagii khibrad iyo aqoon oo warbaahin oo celinayso oo dhahayso waxaana anshax waaye waa la dhigi karaa waxaana anshax ma aha horta ma haysto koow ma tahay labo population keena Soomaalida markii YouTube wax la dhigo dad Soomaali ah ku daawanaya ilaa Soomaaliya waxay ku baxayaan meel kasta dunida ka joogan population marka dhalinyaro u badan dad generation waxa waaye da'yar ah marka dadkan da'da yar wali waxay soo marayaan heerkii waxyaabaha xasaasiga ah inay wax ka arkaan ya xitaa hadii wax oo maxaa la yiraahdaa bini'aadanimada wax u dhimaaya xitaa anshaxnimada gooni waa moogto qof la gowracay xitaa waa iska jeceliin waa daawanayaan dhalinyaradan sidoo jeedaan waxa ay ku jiraan shaqo maalmeedkooda oo waxa ay ku leeyihiin baro YouTube-ka iyagoo maalin kasta geliya muuqaalo ay ugu tala galeen dadka ku xiran barahooda bulshada oo kamid yahay YouTube-ku waxay gudbiyaan riwaayado fariimo ay ku kala gudbinayaan kuwaas oo ugu tala galeen dadka ku xiran kanaaladooda waxayna inta badan ii sheegeen inay waqtiga xilli kasta ay geliyaan waqti kasta ay yimaadaan beerta gaar ahaan goobaha loogu tala galay in dadku ay ku nastaan si ay muuqaalo qurux badan ugu gudbiyaan bulshada ku xiran goobaha ay doonayaan dadka inay uga gudbiyaan muuqaalada waa dhalinyaro yar waxayna mustaqbal ka dhiganayaan inay iyagu isku tashtaan waqti naftooda geliyaan si waxay u soo saartaan si maalinlaha ay uga shaqeeyaan hawshan iyagoo u arkay inay tahay wadada kaliya ee shaqo abuurka u ah noloshooda ku jirta jooji ilmaha yarka hadalkooda qarasta ay u kiciyeen 10 loo dhigo waa fankool loo dhigo kaalis oo Jackson yaad loo baahay qabta janaal kasta ee YouTube waxa uu leeyahay howlwadeenno ka shaqeeya kuwaas oo u sameeya barahooda muuqaalada ay la wadaagi lahaayeen dadka daawadayaasha u ah itaalna kaliya kuma koobno laba qof ama qof oo kaliya leh itaal waxa ka shaqeeya dhowr dhalinyaro oo shaqo abuur loogu sameeyay oo imika qayb ka ah oo maantana magaalada sumcad ee magac ku leh oo dhamaantoodna diyaar u ah inay u shaqeeyaan bulshada sidoo kale waxaan sameynaa oo aan duubnaa xafladaha oo kale seminaarada oo kale qayb ka noqonaa waa duubnaa ana waxaasna ugu diyaarinayna waxtar bulsho wax ay wax ku arki karto milkiilayaasha iskala janaalo badan oo laga daawado YouTube-ka waa dhalinyaro waana mid dad badan ay qabaan in muuqaalada ay soo galiyaan ay yihiin kuwa aan la faafreebin ama si ku talagala mararka qaar uga dhacda si ay ugu raadsadaan tiro badan oo daawadayaal ah horta ani waxyaabo iska ilaaliyo shakhsi ahaan waxay tahay waxyaabo barika maalin lagu qaban karo haddii shirkadda YouTube ay ku qabanayaan taa qof bini'aadan ah taa adiga in qof bini'aadan oo shakhsi aad camal ina u gafto waxyaabahaas qaladka oo kale iska ilaaliya inta YouTube-keedu asaasan yahay wallahi mas'ii karo qof maanta u gaftay oo wax qaldan ka gudbisay arrin kaftan way jirtay oo saaxiibkii Hanad Yare oo macnaha inta badan riwaayad asal sameeyno oo ani soo wada kaftameeno arrin kaftan isku ognahay oo kaftan aan ku soo tuuray
oo asna reaction ka soo bixiyay halkaas aniga macnaha qaladda ma arko wax asaga la ogyahay reaction ee macnaha waxa way hanad waa kana waxa arkay wiil isku xaafad ay jireen mashruuc noocaas oo kala galay asagana macnaha wuxuu wiilkan ma usnaqaan saas waa arin aniga isku ogeyn marka asagana macnaha waxa aan asaga ugu dan lahaa ma ahayn waxa isku ogeynayd marka inta badan waxyaabaha iska ilaaliyo waxay tahay in negative aan u adeegsado meesha negative adeegsada waxa jacayna positive ku adeegsado waxyaabaha wanaag ah ku soo gudbiyo qaar badan oo kamid ah dadka sida dhow ula socda baraha muuqaalada la dhigo ee YouTube-ka ayaa dhiirigelin u sameeyay janaalada ay u arkaan kuwa la soo galiyay waxyaabaha faa'iidada u leh bulshada halka daawadayaasha qaarkood ay dhaliil u jeediyaan YouTube-leyda waa taageertaa way soo wixii like-an ku saari comment-ka ka bixiyay mid kulaalkeygana asina walaa sidoo kale laakiin hal gabar walaasheeda jirtaa waxay aaminsan tahay inuu wax khaldan yahay laakiin inta badan waxa ka dhaadhacsiin baalkan lacag laga sameeyo walaan been ma sheegay wuxuu ii furan yahay 5 months 5 bilood ii furan yahay 5 bilood wallahi ma qiyaasi kartid reera ka gaar alxamdulillah viewskeygu iska fiican yahay subscribe-keygu iska fiican yahay hadan waxa haysta dad i jecel fiicani wallahi hadan video maanta soo dhigo ya law daas ago haduu laba maalin hadii kun fiirsato ay badan yahay kunkaas aan ku iman qabaayo aha ogaay taageeraygu wada sii xarin qof aan ku jeclayn am video-gaaga ka helin adoo soo subscribe miska ka saaraan ogta dadka u tagtay wili YouTube waa laba arrin oo isgarab taal waa mare dhalinyaro badan ayay shaqo u noqotay ka shaqeynta YouTube-ka kaas oo ila qaalo waa qoysas badan oo dhalinyaradaasi ku tiirsan marka labaad waa dhibaato bulsho marka wax ay YouTube-ka soo gelinayaan ay yihiin kuwa dhaqan ahaan iyo diin ahaanba aan u wanaagsaneyn daawadayaashooda balse waxa jira talooyin muujinaya sida loo hagaajin karo waxa YouTube-ka la soo dhigo si loo waafajiyo dhaqanka suuban ana sameyn kartaa dad waxa jira majaajilistayaal oo marka ayaga la arkaba lagu qoslaa sheekadooda iska badaa dadkaas waxa la yiraahdaa rukuman kartaa waxa laga yaabaa adiga inaad tahay qof oo majaajilista ah laftirkaaga wax ka reebaya ma lahan dadka inaad wax fiican u sheegtid laakiin anaga saa majaajiladii u fahanay dad in la caayo qofka inuu codka bedelo ama jaajilo u fahanay shactira tahay qofka inuu isdadabaaliyo aan shactirada u fahanay qof waalan in la wareystaan shactirada u fahanay marka waxa la sameyn karaa wax mutakhassis ah oo dadka anfacayo oo taariikhiyan marka YouTube-ka la galana Soomaalida xageed wax laga raadinayo laga heli karo tusaale ahaan hadda reer galbeedka iyo wadamadan kale aan Soomaali ahayn wax marka raadisid ayaga ka helay camera sidee loo isticmaalaa ayaga ka helay interview waraysi sidee loo qaadaa waa helay waxaasna waa la daawaday le waa la daneynaa anaga laakiin ma aha marka in wax dadka anfacayo mutakhassis ah marka laga soo tago Soomaaliya waxa jira malaayiin janaal oo YouTube kuwaas oo waxay soo dhigaan ay dad badan ku xiran yihiin isla markaana ay ka faa'iidaan waxay isugu jiraan kuwa dadka madadaaliya kuwa wax laga barto kuwa dooda abuura dadkuna ay aragtidooda isku dhaafsadaan iyo kuwa kale oo mid kasta oo mowduuc gaar ah ku caan yahay kuwa Soomaalida waa laga dhigi karaa YouTube wax badan laga faa'iido inkastoo iminkaba ay jiraan haddana waa kuwa tira yar maxamed ciise kona goobjoog muqdisho